السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. كسو دوادا دورة لغة عربية. waxaan warbixin ka bixin doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo clipkan aan ugu talagalnay in aan ku qeexno dowladda luqada carabiga al-mustawa al-awwal waxa ay tahay iyo faa'iidada ay leedahay iyo waxaad ka baran doontaan hadduu Ilaahay yiraahdo. luqada carabiga koorsadan hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan xoog ku saari doonaa afarta mahaaro ee la yiraahdo al-mahaarat al-lughawiyya ama language skillska afarta oo kala ah dhageysiga iyo hadalka iyo qoraalka iyo maxaa la yiraahdaa akhriska oo qofku markuu cashar barto ereyada uu bartay uu ku hadli karo haddii uu maqlo iyadoo lagu hadlayo uu fahmi karo haddii uu akhriyo ayagoo meel ku jiro ama xiwaar uu fahmi karo iyo sidoo kale chapter walba markuu dhameeyo ama fasal walba uu dhameeyo inuu u bedeli karo tacbiir iyo inuu tacbiiriyo oo uu qoro taasoo insha Allah taala aan rajeynayna in aad iyo aad uga bogataan daawana ay u noqoto dad badan oo carabiga inay bartaan rabo laakiin aan helin hore u helin fursad ay ku bartaan koorsadan waxyaabaha kale ee la gaar ka tahay waxa kamid ah in qofku uu asagu ku baran karo gurigiisa soo joogo sida uu rabo iyo xilliga uu rabo iyo waqtiga inuu ku dhameeyo uu doonayo uu ku dhameyn karo waxa ku dhameyn kartaa dhowr usbuuc waxa ku dhameyn kartaa bil waxa ku dhameyn kartaa 2 bilood qof walba waqtigiisa iyo sidoo kale waxa la yiraahdo timekii waqtigiisa iyo juhdiga inuu galiyo uu rabo buugga aan isticmaali doono waxa la yiraahdaa al-arabiyya bayna yadayk buuggaas ama kitaabkaas oo ka kooban 4 mustawo ama 4 heer buuggaas oo kamid ah al-arabiyya bayna yadayk buwaagtii intii aan arkayay buwaagta ka hadasho barista luqadda carabiga dadka aan u dhalanin buwaagta ugu fiican oo ugu horeeyo maxaa yeelay wuxuu isku jamacsaday ama uu maaragtay laga wada heli karaa afartii dhinac aan soo sheegnay ee luqadda laga barto hadalka dhageysiga qoraalka iyo akhriska sidoo kale wuxuu leeyahay cajalada la socdo sidaan soo sheegnay buugga wuxuu ka kooban yahay 4 level 4 heer midaan levelka koobaad coursekiisa koobaad ayaan insha Allah taala dowladan aad ku qaadan doontaan chapterada ama mawduucyada uu ardaygu ku baran doono inta uu wada dowladan waxa kamid ah وحدة كوبات التحية والتعارف أو كبران دونه سيدا قف له سلامه سيدا قف له مهد عليه سيدا إمارة برشة وناكسن لو يراهدو الصبح وناكسن يوح لمدك يسيدا قف كلا لبا قف سي اسكو برتان لبا قف سيدا اسكو باركارو iyo sidoo kale tasuul shaqadiisa oga sheekeen karo taas oo markuu dhameeyo la rabo inuu hadal ahaan u isticmaali karo laba qof isbari karo ama qof baran karo iyo sidoo kale inuu qori karo tacbiir ama qoraal uu ka qori karo naftiisa iyo shaqadiisa iyo meel uu ka shaqeeyo chapterka labaad oo ku qaadan doono wuxuu ka hadlayaa al-usra ama family chapterka ardadu waxay ku baran doonaan hadduu Ilaahay yiraahdo wax walba oo ku saabsan erayada qoyska chapterka markaan gudubno chapterka saddexaad ardadu waxay ku baran doonaan al-manzil ama al-sakan guriga uu degan yahay inuu qeexi karo inuu sheegi karo meel uu degan yahay iyo adresskiisa inuu gurigiisa qeexi karo inta qol uu ka kooban yahay inuu sheegi karo qolalka waxyaabaha kala yaalo iyo qalabka iyo furniture-ka chapterka afraad waxaad ku baran doontaan al-hayatu al-yawmiyya ama daily life-ka waxa la yiraahdo nolosha maalinlaha ah oo qofku uu ka sheekeyn karo xilligu soo tooso xilligu habeenkii seexdo maalinkii wuxuu qabto goortuu shaqada aado iyo goortuu ka soo rawaxo iyo waxa la midka ah chapterka shanaad ardadu waxay baran doonaan at-ta'am wa sharaab ama waxa loo yaqaan al-mat'am inuu restaurant ama mat'am intuu soo galo ama maqaayad oo dad Arab ay ku nool yihiin ama ay maaragtay ka shaqeynayaan inuu wax ka gadan karo cunooyinka uu cuno inuu qeexi karo kuwa uu jecel yahay maxaa la yiraahdaa maalin walba inta goor wax cuno iyo waxyaabaha uu cuno inuu qeexi karo chapterka lixaad wuxuu ka sheekeynayaa as-salaah oo masaajidka iyo xilliga la aaday salaadaha iyo xilliga la tukado iyo erayada la xiriiro ayuu ka sheekeyn doonaa qodobka afraad waa ad-dirasa ama study waxbarashada inuu ka sheekeyn karo ardayga iyo meel wax ka barto inta xiisadooda uu qaato iyo waxa uu barto iyo waxyaalo noocaas inuu qeexid ka bixin karo chapterka 8aad oo ugu dambeeyo wuxuu ardaygu ku qaadan doonaa al-amal oo inuu qeexi karo oo ka sheekeyn karo su'aalo weydiin karo qof kale oo ku saabsan xagga shaqada
iyo maxaad ka shaqaysaa meeqa saac baa shaqaysaa shaqooyin kala duwan inuu barto iyo maaragtay professional kala duwan iyo shaqooyinka dadka ay qabtaan inuu qeexi karo familkiisa ama saaxiibadiis oo uu ka sheekayn karo waxyaabaha kala duwan ee shaqooyinkooda ay qabtaan dhammaan inta aan soo sheegnay ee jabtarada ah waxaa la socon doono ardaygu inuu barto grammarka ama naxwaha inuu barto iyo qawaacidda luqadda carabiga naxwaha luqadda carabiga inuu barto oo la socon doono cashar walbo naxwahaasoo xoogga lagu saaray naxwaha loo yaqaano naxwaha la isticmaalo dadku ay isticmaalaan lagu hadlo chapter walbo naxwo u baahan yahay oo luqadda laguma hadli karo qawaacid la'aan iyo grammar la'aan laguma hadli karo marka chapter walbo waxaa la socdo qawaacid iyo loogu talagalay naxwo loogu talagalay oo ardayga uu looga dhisayo iyo tadriibaad kala duwan markuu ardaygu dhameeyo kooriskan hadduu ilaahay yiraahdo wuxuu noqon doonaa arday isticmaali karo dhammaan topigyada aan soo sheegnay haddii uu la kulmo dad carab ah kula hadli karo haddii uu dhageysto wax mawduucaadku soo dhigtay ah maxaa la yiraahdaa ka saacidayso inuu fahmo inuu topic uu ka qori karo afartii xirfadood ama afartii language skills kaba inuu halkaa uu ku wada jamciyo koorsadan waxaad ka heli kartaan website-ka ama mowqica wax lagu barto share xirfad waxaa iska kaashaday koorsadan share xirfad iyo Najax Academy oo idinla socodsiin doona insha Allah tacaala aad kala socon doontaan waxaad ka heli doontaan aad kala soo xiriiri kartaa si aad isku diiwaan gelisid linkiga ama la socdo maxaa la yiraahdaa internetka ay la socdo codkan ama videoga la socdo ayaad iska diiwaan geli kartaa si aad maxaa la yiraahdaa aad uga mid noqoto ardayda aad ugu soo biirto aad iyo aad ba umahadsantihiin waa insha Allah tacaala waxaan filaynayaa inaad ka bogataan in aad idin noqoto fura idinku saacido inaad luqadda carabiga baahida aad u qabteen in badan aad raadinayseen aad gurigiina adigoo jooga aad ka barataan shukran lakum assalaamu calaykum waraxmatullah